السلام عليكم أصحاب maanta waxaan idin wadaa xikmado dhowr ah oo ka turjumaya nolosha ereyga xikmad asal ahaan waa erey carabi ah Soomaali ahaanna waa murti waana erey ay ku dheehan tahay waayo aragnimo aqalkii weynaa ee Luqmaan al-Hakim ayaa wuxuu yiri hadii dadku kugu faanaan hadal wanaagooda waxaad ugu faantaa aamus wanaagaaga hadii adiga qof abaal aad u gasho iska jir inaad xusuusiso hadii adiga abaal lagu galana iska jir inaad ilowdo hadii maalku ka lumo waxa ka lumay shay qiimo badan hadii sharaftu ka luntana waxa ka dhuntay shay aanan maal goynin sidoo kale hadii rajadu ka luntana waxa tahay ceer faqiir nolosho idil seegay shimbirgeed saaran marnaba kama cabsato in ay laanta la jabto sababtoo ah kalsoonidu ma ahan laanta ee waa baalasheeda had iyo jeer ku kalsoono naftaada hadii uu kunta banaanka laga jabiyo noloshu waa ay dhamaataa hadii gudaha laga jabiyana noloshu waa ay bilaabataa oo digaag yar baa dhalata nolosha iyo wax walba oo seereeya waxa ay ka bilowdaan gudaha marnaba sugin wax banaanka kaaga yimaado inuu noloshaada bedelo ama uu farxad ku keeno inagu ma awoodno joojinta dhibaatooyinka dhinaceena ah balse waxaan awoodnaa in aynan siin dhibaatada kursi ay nagula fadhiisato oo ay nagula joogto xabsiga ugu weyn ee bini'aadamka ku noolaado waa cabsida iyo fikirka waxyaabaha dadka kale ay ka aaminsan yihiin hadii aad iska hadasho waxa aad ku celinaysaa waxyaabihii aad taqaanay oo kaliya balse hadii aad dhageysato waxa aad baranaysaa waxyaabo aadan aqoonin fahmidu waxa ay ka baaxad weyn tahay aqoonta waxa jir dad badan oo ku yaqaana balse aanu ku fahmi karin guusha dadka kaleeto ma ahan adiga fashilkaaga marnaba ka xumaan qof kale guul u gaaray dadaal badan dulqaad doonid joogto ah iyo duco ayaa ah inta badan sababaha guusha dulqaad yari iyo degdeg waa xididka dhibaatada marnaba ma qasbi kartid nolosha in ay jawaabo ku siiso ama sida aad rabtid wax kasta ay u dhacaan waa inaad ogaataa in culays kasta uu fudeed ka dambeeyo waa inaad aqbashaa wax kasta in ay leeyihiin waqti tanka u dhaxeeya libaaxa iyo deerada waxa had iyo jeer ku guuleysta deerada sababtoo ah libaaxu waxa uu u ordayaa hungur iyo cuno deeraduna waxa ay u ordaysaa nolol xusuusno ujeedadaada iyo hadafkaaga ayaa aad uga muhiimsan baahidaada